السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا دمان بهوين تكحرن كينج يوكو فيشيال رمضان كريم رمضان مبارك دمان مسلمين تأدون كون ولا أنا وحنوجهم بلينا يا بيش بركيسان رمضان فضل جدا إن شاء الله رمضان كان رمضان كيسي يا هنوجو جارسيو بش برواقه إن شاء الله مقال كنا ما نتحوجها اللي دونا برشاد فيديو إديتين كي وحقيق وين كقاتي رمضان كا وحاسوستا رمضان هذا الله صار رافي كمد إن الحسين جري برشاد فيديو إديتين كرمضان كهر وحسين جري wax walbaan isku dayay xogaa way ugu adkeed laakiin markii la gaaray ramadaanka bishiisi macnaha bisha ramadaanka sanad walba waxa ku jirta hal bil bishaas oo fadli weyn wadata qaasatan bisha ramadaanka markii la gaaray bisha ramadaanka wax badan ba iska kay bedelay fahanka video editing iyo barashadiisa waxaan xasuustaa bilooyin fara badan video editing aan ku soo dhex jiray wax aanan ka fahmin baa waxaan ku fahmay halkaas bil oo bisha ramadaanka haddii aad rabtid inaad video editing baratani waxaan kugula talin lahaa hadda waxaa la joogaa waqtigii aad video editingka ama graphic designka ama xirfad alaala xirfadaad rabtid si wacan oo wanaagsan aad u baran karto sababtoo ah ramadaanka waxay kaa saacidaysaa inaad jadwalkaaga uu saxmo faas waxaan ku sheegi doonaa tirig yar ama khiyaano yar ku jirto in xirfad alaala xirfadaad aad baran karto bisha ramadaanka sababtoo ah ramadaanka fiiri TikTok lama gali karo qof walba uu iska ilaalinaya galida Facebooka oo waxyaalaha qaar la soo dhigo TikToka YouTube-ka wala iska ilaaliya YouTube-ka hadii la galo YouTube-ka sidiisaba wax aadan ku dhufanin ma daawanaysid mogtaa YouTube-ka waa la wada galaa waxyaalaha qaar laga daawadaa laakiin TikTok-ga iyo marka aad ku dhufatid wax walba ka soo warbixi karo iyo Facebook waa la iska ilaaliya marka waxa dhacday inaan u bato dhanka YouTube iyo daawashada muuqaalada video editing-ka waxaan xasuustaa markay bisha Ramadaan dhama waxaan gacanta ku haystay laba shahaado oo video editing ah waxaan galay koorasyo oo aad u yar oo waqti aad u yar ay soconayeen ilaa 3 isbuuc oo kale oo video editing-ka walaa waxaan xasuustaa laba shahaado oo bilooyinka hore aan soo wadwaday oo dhan aan confirm gareyn casharadooda la iga rabay markii shahaada aad ku guuleysanaysid waxa loo baahan yahay imtixaan laga qaadaya casharadaas markii aad sida la rabo aad u keentid shahaadada lagu siinaya dabcan imtixaanada bilooyinka hore dhan waxaan ahaa qof aan ku guul dareystaan ahaa laakiin bisha Ramadaan casharadii aad ugu laabtay fahankiisa ziyaaday imtixaankii aan galay waan ku barmoosay shahaadooyinkayga ayaan soo qaatay bisha Ramadaanka video editing-ka dadka barashadiisa raba aad ay u macna ay u saacidaysaa haddii aad danaynaysid muuqaal edit gareynta daawashadooda inaad barato graphic design-ka barashadooda marka waxay ku fiican tahay waqtiga bisha Ramadaanka sababtoo ah qofka jaanis fara badan uu haayaa haddii uu shaqeeyo xitaa waqtiyada jaanis ku haa meesha uu TikTok ka daawan jiray hadduu muuqaalada video edit gareynta daawado qaybna uu cibaadaysto qaybna wax uu baran karaa bisha Ramadaanka marka waxa aan ka qaybiyay dhanka waxbarashada markii la anwaan huwa waxaan wax ku bartay video editing ama graphic design-ka waxa waaye bisha Ramadaanka gudaheeda inta lagu jiro haddii aad xiisaynaysid intaa inaad wax dheeri aad si ziyaadsato ama aad wax badan barato waxaan kugula talin lahaa inaad bishan Ramadaanka aad ka faa'iideyso dhanka cibaadada aad uga faa'iideysato dhanka iyo muuqaal edit gareynta haddii aad xiisaynaysid ama koorasyada aad faraha badan leh aad dadka barashada macnaha wax ay baranayaan inaad uga faa'iideysato waxbarashadu ma dhamaan video editing-ka oo kale tusaale hadda maalin haddii isbuucan ka maqnaado waxaan isku arkay in wax cusub ay soo kordheen barashadiisii la rabo marka gacan ku hayn ay u baahan yihiin waxaan maalin waad gaari doontaa inaad ku shaqayso xirfadaad maanta bar laakiin ilaa laga gaaray waxaan kugula talin lahaa inaad si fiican u baxdayso aad u daraasayso qof walba oo fikir i weydiiyo sideen video editing ku baran karaa markuu idhaho kaliya waxaan siiyaa fikir yar ama khiyaano yar oo aan soo sameeyay khiyaanadaas oo ah haddii aad danaynaysid inaad barato video editing-ka oo kale ama graphic design-ka oo kale waxaa lagaaga baahan yahay inaad waxaan daawashadooda badiso mar walba aad joogtayso inaad daawato mar walba daawato markii aad daawashadooda badiso dabcan waxaa ku hagaagaysa ama ku fududaanaysaba inaad video editing-ka aad qof ku xeel dheeraadno marka waxaan kugula talin lahaa markii aad rabtid inaad shay barato waxaa la badiyaa daraasayntiisii baaristiisii search gareyntiisii wax waa la searching gareeya marka haddii aad maanta dhan aad daawanaysid tusaale TikTok oo kale aad waxyaalaha scroll aba sameynaysaa qofba mar baa kuu soo galaayo hebel la barangi sameeyay hebel asaan sameeyay haddii aad daawanaysid ma baranaysid xirfadaas xirfad inaad barato markii aad rabtid waxaa loo badiyaa daawashadeeda dhageysigeeda waxa inaad train garayso kale waqti walba aniga mar walba aan wax sameynayo computerkayga igama foga video editing oo kale markii aan rabo inaan video editing sameeyo aniga mar walba waxaan daawadaa muuqaalo anigoo hadda aan isdhihi karo maanta waxaa taagan tahay heerkii beginnerka waa kasoo gudubtay qaybta dhexdhexaadka xitaa waa kasii gudbay oo alxamdulillah waxaan marayaa heer sare sababtoo xirfadda waa ku shaqeeyaa video editing-ka iyo graphic design-ka iyo waxyaalahaas xitaa waxaa ii dheer inaan cameraman ahayo photographer oo videographer ah wax walba aan intaa khuseeyo waan qabtaa arrimaha multimedia aad ugu xeel dheerahay sidaa ay tahayna kama fariyo mar walba waxaa isku daya inaan wax ziyaadsado
wax aan barto tusaale maanta muuqaalan raba inaan soo duubo oon shotkiisa soo qabo muuqaalka maanta meesha aan ku duubayo waa sii ogahay waxaan ka fikiraa baleyska siduu yahay waxaan ka fikiraa lensasyada ama zoomka aan u isticmaali lahaa waxaan ka fikiraa kaamiradaas shotka aan ku qaban lahaa kaamiradee waaye lenskeen u isticmaalaa haddii aan soo duubo oo kalarka aan noocan saari lahaa kasii fikiraa ladka ama aan sii diyaarsadaa soo marka mar walba wax inaad daawato lagama weynaa waa inaad wax daawato waa wax muhiim barashada shaygan waxaa loo badiyaa daawashada dhegaysi iyo inaad train garayso inta haddii aad isku hesho dabcan waxaad noqonaysaa qof aad iyo aad ugu fiican arrimahan ididgaraynta ama wax uu baranayo aad ugu fiican ayaad noqonaysaa barashada markii la soo gudigalan dhanka luqadda ingiriiska oo kale dabcan markii aad tagtid iskuul ama aad qof professor ama qof luqadda ku xeeldheer aad wareysatid oo daadid waxaan rabaa inaan barto luqadda ingilishka maxaa igu talin lahayd markaa dhaa talada uu ku siinayo waxaa waaye waa inaad qortaa luqaddan mar walba aad qoritaalkeeda badisaa waa inaad dhegaysigeeda badisaa waa inaad ku hadalkeeda aad isku daydaa waa inta ugu muhiimsan ee loo isticmaalo markii la baranayo luqadaha keliya luqadda ingilishka maaha luqad walba marka adiga markii aad isku dayaysid inaad barato luqad ama markii aad isku dayaysid inaad xirfad barato xirfaddaa waxaad ku baran kartaa waa inaad mar walba ku dhex jirtaa ku dhex jirkeeda had tusaaloo kale waddan kale markii aad rabtid inaad la qabsato environmentiga dadka deega waxaad samaynaysaa ku dhex jirka waddankaas ayaa kugu fara badan qof walbaba dadka soomaalida waxay dhahdaa meel walbaba say u taala la aalaa video editingka markaa imaatidoo kale traingareenka badi maanta markaa halaabayo computerkaaga applicationka hadduu halaabo dib aa loo sixi karaa soo degsa applicationkaaga every single minute waxaad isku daydaa inaad wax cusub samayso ama waxaad practical soo daawatay maqashay waxaad samayso kadib waxaad noqonaysaa qof aad iyo aad ugu xeeldheer waxaas marka insha allah haddii aad wax barasin macnaha xirfad aad baranaysidna ha u baranin maxaa tusaale haddaa income maashay kaa soo geli karo looma bar markii aan baranay anin faa'iido uma baranin inaan ka helo wax kharashaad faa'iida laakiin waxaan u baranaya dadka ma sii bari karaa wallahi fikrigayga midkaasuu ahaa dadka ma bari karaa hadda laakiin heer waxaan gaaray dadkana waa bari karaa alxamdulilah waxba u faa'iideyn karaa waana ku shaqaystaa faa'iido waan ka marka shaqo lama weysana video editing iyo graphic designka qof ku xeel dheer oo zaa'id u yaqaano marka aad noqoto waa ku shaqaysan kartaa marka soo insha allah mar inaan muuqaalkan ku dheeraado waana soomanaya energy badan lama haayo shaqan way ii taala waxaan is dhahay in badan oo badan baad youtube-ka ka maqneen asxaabta markaa waa inaad muuqaalo yar yar aad u soo gudbisaa si ay muuqaalada ay macnaha xoogaa iniida uga dhistaan oo dhaha ninka waa laga warhaaya uu jooga sababtoo ah dad badan ayaa isoo weydiiyey maqnaanshahaygii iyo waxaa sababay inaan maqnaado waxa ay yihiin dabcan waa aan joogaa qof dadka inta ugu badan oo clientiga ila soo xiriiro muuqaalo editgareynta aan u sameeyo waxaa jira dad clienti ah oo muuqaal editgareynta aan u sameeyo oo kale muuqaalo iska duuba isbuucii laba muuqaalo oo kale aan u sameeyaa bermonth intaasaa laga qaada marka shaqooyinkaas markii aad barato video editing waxyaalaha clienti aad heli doontaa insha allah so insha allah muuqaalkeena maanta halkaan inaan ku ekeen isku dayi doona ramadaan kariim ramadaan mubaarak insha allah ramadaankan ramadaankiisii bashbashii barwaaqo ilaahi aan ugu gaarsiiyo asalaamu calaykum